Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barashada cilmiga video editingka ama muuqaal sameynta. Waa cashirkeenii lixaad. Maanta waxaan qaadan doonaa annotationka. Waxyaabo fara badan ayaa laga soo geliyaa. Haddii aan ku dhufano inta previewgiisa noo soo baxayso qaybta ugu horeyso, waxyaabo badan ayaa kasoo gelin kartaa. Tusaale ahaan qoraal inaad qortid hadaa u baahan tahay, ku dhufanaysaa meeshaan saddexda abcd ay ku qoran tahay. laba kaliya hadaa ku dhufatid waxay leedahay saarmay. kadib waxaa rabta ay ku qoraysaa tusaale baro muuqaal sameynta. waa jiidi karnaa, waa jiidi karnaa. waxaan ka bedeli karnaa fontiska, waxaan kaloo ka bedeli karnaa bold ayaan ka dhigi karnaa, italic ayaan ka dhigi karnaa, bold oo kale ka dhig. colorka ka bedeli karnaa, jaallo kale aan ka dhigi karnaa. inta fontigaan ka weyneyn karnaa. hoos diirto haddii aan rabno waan ka xariiqi karnaa. dhinacana waan ka bilaabi karnaa, ama dhanka bidixda ama centerka dhigi karnaa. sidoo kale waxaa kaloo ku jiro falaaraha ayaga waxbaa lagu tilmaamaa ka soco. qaybtan waa shapekan oo kale gadaal ayaan ka saari karaa. shapeskaas soo geli karnaa. sidoo kale waa sii kormarin karnaa. qoraalka hadaa kormarisid oo shapeska aad marisid way kasoo dalbaxaysaa. intoo kaleeto waxyaaba inaad qarisid aa u baahan tahay hadday jiraan saana u saaraysaa. matalan hadda muuqaalka intaas qaybtaas lama arkaayo. haddii muuqaalka wax ay kaa soo galaan oo kale sida loogu qariyo waayo. qaybta aad diirada saaraysid ayay sheegaysaa. inta kale hadda cawaaf ay noqoto, laakiin intaan waa ujeeda aaday clear u tahay. waxaa kaloo jiro qaybtan waa calaamadaha. inta badan dadka cashirada sharax ayaa aada u isticmaalo. meesha inay tilmaamaan raba kan oo kaleeto saarayaan. waa ujeedaa meesha haddii koobin tahay kaasoo kale la saaraya. qaybtan keyboardka kusoo hartay shortcut yaa yaala, waa ujeedaa. tusaale intoo kale iska dhig. meeshaan shortcutka ayaa waxaa ku sameynaysaa shift t oo kale hadaad tiraahid, control t oo kale, control a oo kale. marka meesha sidaa u qortid space oo kale dhigi kartaa. meeshii aad taabatid marka ayuu kuu sheegayaa. shortcutka kale inaad sheegtid ayaa u baahan tahay. sidoo kale waxaa kusoo darsan kartaa wixii aan hore usoo qaadan oo kale, behaviorka, transitionka, waxaas oo dhan waa u sameyn kartaa. marka cashirkeena intaas isaga soo gaabinaynaa. annotationkaas waa muhiim. qofkii inuu qoraal kusoo daro, inuu shape kusoo daro, inuu meel tilmaamo haddii uu u baahan yahay, inuu shortcut adeegsado. waxyaabahaas faraha badan ayuu ka caawinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.